Waxa isa soo taraya su'aalaha dadka reer beledweyne ay iska weydiinayaan dayaca amni ee ka jira magaalada iyo dhacdadii u dambeysay ee Sabtidii lagu dilay sida la sheegay 34 qof laguna dhaawacay 48 kale kadib markii gaari nooca xamuulka qaada ah oo waxyaabaha qarxa lagu soo raray lagu qarxiyay xaafad ku taala bariga magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan. Gaariga weyn ee qaraxa siday ayaa la sheegay in uu markii hore soo maray bar hubin oo sidoo kale lagu qaado canshuurta oo ku taala buundada liiqliiqata halkaasi oo warqadda canshuur bixinta looga jaray nin dadka gawaarida kala gudbiyo lagana yaqaano magaalada ayaa la socday gaariga qaraxa siday sida la soo warinayo. Gaariga ayaa socodkiisa sii watay isagoo markii dambe yimid bar kale oo lagu hubiyo gaadiidka markaasi oo loo diiday in uu gudbo ilaa baaris dhammaystiran lagu sameeyo. Booliska ayaa sheegay in ay hayeen xogta gaariga qaraxa sidaasi daraadeed markii ay maqleen in uu ka gudbay buunda liiqliiqato ay kasoo dabadireen ciidan kale oo isugu jira boolis iyo military si ay uga hor istaagaan inuu u gudbo bartamaha magaalada iyagoo uga daba yimid barta hubinta ee horseed ee uu gaarigu taagnaa. Nasiib darrase halkaasi ayuu isku qarxiyay ninkii gaariga waday waxaana dhacday musiibo dad badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Taliyaha booliska ee beledweyne ayaa BBC-da u xaqiijiyay in gaariga qaraxa siday uu ka gudbay bar kontarool oo canshuurta lagu qaado. Way jirtaa in bar hubin uu soo maray gaariga qaraxa siday oo canshuur looga qaaday ciidamo isku dhaf ah oo boolis iyo military isugu jira ayaa goobtaasi barta kontarool ee liiqliiqato ku sugnaa ayuu yiri. Marka sababtii uu ku soo maray iyo raggii damiinka ka ahaa waa lagu raad joogaa waana la keenayaa cid walba oo kiiskaasi ku lug lahayd gacanta ayaa lagu soo dhigi doonaa ayuu yiri taliyaha booliska beledweyne Axmed Cali Aadan. Mar taliyaha wax laga weydiiyay in uu jiray nin magaalada laga yaqaano oo gaariga damiinka ahaa kaasi oo buundada liiqliiqato kasoo gudbiyay ayaa waxa uu ku jawaabay waa jira nin la yaqaano oo gaariga la socday oo markii horena soo mariyay buunda liiqliiqato markii dambena la yimid goobta uu qaraxu ka dhacay maadaama gobolada dhexe laga yaqaano dad la yiraahdo qabaan oo baabuurta kala gudbiya oo waxaas ka shaqeysta marka in uu ogaa qaraxa iyo in uusan ogeyn hadda wuu dhintay waxaana socota baaris la xiriirta arrintiisa ayuu yiri taliya Axmed. Booliska ayaa rumaysan in gaariga qaraxa siday uu ka yimid galbeedka gobolka Hiiraan halkaasi oo weli ay ku xoogan yihiin Al-Shabaab. Falcelinta dadka deegaanka ee reer beledweyne. Dadka magaalada beledweyne ayaa sheegay in khilaafka siyaasadeed ee ka taagan beledweyne uu u sahlay in Al-Shabaab ay qarax noocan oo kale ka fuliso dhowr jeer oo isxigta magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka Hiiraan. Waxay rumaysan yihiin in tan iyo markii uu bilowday khilaafka siyaasadeed ee maamulka ka taagan gobolka Hiiraan uu yaraaday dadaalkii lagu hayay Al-Shabaab taasina ay u sahashay Al-Shabaab in ay is-abaabulaan oo ay weeraro noocan oo kale ka geystaan Hiiraan. Sidee ku soo gudbay gaariga qaraxa siday oo canshuur looga soo qaaday Hiiraan State ma naqaano Hirshabeelle ma naqaano cid kale ma naqaano arrintu reer ayay taagan tahay wixii reerku uu ku tashado ayaan sameynaynaa ayay tiri Xaliima Sacdiye oo ka mid ah haweenka ku nool beledweyne oo iyadoo careysan la hadashay warbaahinta. Dadka magaalada beledweyne ayaa ku jahwareersan labada maamul ee midba midka kale uu sheegayo inuu isagu gobolka mas'uul ka yahay oo xukumo beledweyne kuwaasi oo kala ah maamulka gobolka Hiiraan ee dowladda Hirshabeelle ay dhistay aqoonsan tahay iyo maamulka Hiiraan State oo uu hogaamiyo Cali Jeyte Cusmaan. Cabdi Cali Xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada beledweyne ayaa sheegay in iyadoo aan xal loo helin khilaafka maamul ee ka taagan magaalada beledweyne ay adkaan doonto in la maareeyo amniga guud ee gobolka. Amni marka laga hadlayo waa in uu mas'uuliyad yeesho iyo in ay jirto cid lagula xisaabtamo wixii halkaasi ka dhacay. Halkan maamullo iska soo horjeedo ayaa wada joogo mid kastaayna uu mas'uuliyad sheeganayo sidaas darteed dayac weyn ayaa jira haddii aan khilaafkaasi la xallinin oo aan wax laga qabanina
fashilka amni ee hadda taagan iyo dhibaatada taagan mid ka sii weyn ayaa suuragal ah inay dhacdo ayuu hadalkiisii raaciyay khilaafka siyaasadeed ee ka taagan gobolka Hiiraan bishii Juun ee sanadkan ayaa madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen waxa uu xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cusmaan oo sidoo kale udub dhaxaad u ahaa kacdoonka ka dhanka al-shabaab madaxweyne Guudlaaw waxa uu u magacaabay gobolkaasi nin lagu magacaabo Cabdullaahi Axmed Maalin Sufurow Cali Jeyti ayaa diiday xilka qaadista lagu sameeyay wuxuuna sheegay in gobolka uu ka madax bannaan yahay maamulka Hirshabelle isaguna wixii hadda ka dambeeya uu madax u yahay maamulkaasi goon istaaga ah ee Hiiraan State magaalada waxa wada jooga ciidan ka kala amar qaata dowladda federaalka ee Soomaaliya maamulka Hirshabelle maamulka Cali Jeyti ee Hiiraan State taasina waa dhibaato kale ayay sii raaciyeen dadka deegaanka booliska ayaa sheegay in iyadoo waxaasi oo ciidan ah oo kala afkaar ah ay joogaan magaalada ay adag tahay in xal loo helo amniga beledweyne dhawaan shir magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan lagu qabtay oo uu ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayna ka qayb galeen siyaasiyiinta bariga gobolka ee ka soo jeeda ayaa lagu sheegay in hoos loo dhigay khilaafka siyaasadeed loona midoobay dagaalka ka dhanka al-shabaab arrinta siyaasadana gadaal laga xalin doono macmil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmil booqo xarumaha Somtel ama Dahabshiil si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadala